inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka bismillaahi raxmaani raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa idin salaamay soomaali maxamed, see tihiin? ma caafimaad qabtiin? ilaahay meel walba oon joogno allah nagu ammaansado. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. ilaahay waana bariisiyey, ilaahayna nabadna waa nagu soo kiciyey. halkan waxaan ka arkayay tv-gaas ka daawanayay. alxamdulilah, maanta waxaan leenahay axad baan leenahay oo aan joognaa, waa maalin axad. alxamdulilaahi. soomaaliya ilaahay waxaan ka baryayaa horta inay cadaalad hesho. waa victim, dadkeeda victim mehe, wadankii baa victim noqday hadda. yaa ilaahay wadankeena cadaalad ha siiyo. ummadan la dhaarinayane kolba dadka maanta kabti iyo maxaa la yiri kitaabka iskugu mid ay noqdeene, ilaahay kitaabka dhaartiisa kuwii aqoonsada allah ka dhigo. kuwii ma aragtaaye say u dhaarteen, dhaarta say ugu dhaarteen u wada oo ma aragta xilkooda uga soo baxa allah ka dhigo. wax kaloo leeyahay male, aniga waxbana ku dari maayo. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. ilaahay wadankeena lugihiisa ha ku istaajiyo. wadankeena cadaalad daraa ayaa jirta, cadaalad daraa jirto. rag ayaka ma aragta jeebkooda inuu u buuxsamo rabo, danaystayaal ah ayaa wadankii qasaayo. ilaahay ha naga qabto. alxamdulilah. ilaahayna hanoo dhiso dadkeena bagiisa burcad allah iisu mariyo. baalkasi sibuu biga yahay maqaan wax. ilaahay bagiisa burcadda dadka ha iisu mariyo insha allah. waa idin salaamay soomaali maxamed, meel allah meeshaad joogtaanba waa idin salaamay. ilaahay inta dhimatana ha u naxariista, inta noolna caafimaad sareecan allah siiyo. meel walba joognana allah nagu amaansado. intaasaan oga baxay sheekadaas. alxamdulilaahi. waa sheekadii soo dhacitaankii hore. ummadan dhaaranaysana ilaahay kuwo wadanka si wanaagsan ku wada allah ka dhigo. wadankeena ummad kale ayaa ku danaysan hayso maanta. ninka wax magaradka oo wax makastada ahaatay, ilmaha yaryar oo wax makastada wadankeena xaalkuu marayo way la socdaan. macadallaahi qof weyn oo maskaxdiisa leh, ilmaha yaryar wadankeena maanta xaalkuu mari haaye iyo sida ma aragtay saasaankiisa. ilmaha yaryar haata dad ka horeysato waa sheegayaan. waayo wax qarsoonba ma, wax laysu qarinayo male. hadduuba walaalkaa gawaad yahay oo wadamo shisheeye uu adeegaya, oo kii kalena gawaad yahay, oo nin walbaba kiisa tuuggiisa uu faraha ka qaato, oo wadankii saas loo galo, habrahana ilmaha banaanada looga qaato. wiilasha banaanada ha ku hallaabaana, gabdhaha banaanada ha ku hallaabaana, hooyooyinka sagooyina ayaan god ha u xaroodaana, odayaasha sidoo kale. bes dee dad aanan qaran lahayn, waa dad aanan meel haysan, cid kaana haysa ma leh. wadankeena qaranka allah u taaga. cadaaladda allah keena. cadaaladda waa carootay, cadaaladda allah keena insha allah. marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. ilaahay caafimaad waana siiyey. intaana haysanina allah u siyaadiyey. inta caafimaad darra yaro haysana ilaahay caafimaad ha siiyo. halkaas haddaan nooga baxa ilaahay idinkiisa. waxaan rabno waa cadaalad. meel walba oon joogno annaga soomaali haddaan nahay, nin walba waa kii hadla iyo kii aamusanba cadaalad darra inay haysato waan ogaana. inay cadaalad darra, nin qof soomaali oo maanta cadaalad darra aysa ku dhicin ma jirto. kulligayna wada fictimaana, annagaana iska dhigna. kulli dadka soomaalida waa wada fictim. annagaa iska dhigna, annagaa gacantahayna isku dilna. waxaa la yiri hasha qadiga ma ogiyo qarqarkaba ma aragta. hasha qadiga ma ogiyo qarqarkaba ma aragtaa la yiri. waayo nin qadiga u jeeda qarqar muxuu maba arkahay sooma. asaa qarqarkii ka daateen, qadigana ma gaaraysa, qarqarkiina waa ka hobatay. sidii baan nahay sata annaga Soomaali haddana
qarqarka ayaan ka wada hoobanay. ilaahay noo istaaga. umad ilaahay abuurtay baan nahay. ilaahay noo istaagan leh. wallaahi billaahi ilaahay noo istaaga. annaga Soomaali haddaan nahay ilaahay noo istaaga. marka waxa waaye alxamdulilah wax kasta oo kugu dhaca alxamdulilah. waxa waaye dad waxaa jira markay dhibaatada kugu dhaca oo adiga aad dhibaataysan tahay. Soomaalida sideedana waa u badan tahay. mar allahi markaad adiga dhibaataysan tahay oo dhibaato kugu dhacda Soomaalida dhooshay ka qosashaa. ilaahay markiis maxaa ugu wacan ma aqaan xaasidnimada. war qofka walaalka oo kugu xiga dad mar allahi markay dhibaato kugu dhacdo de horta waa maqaadir waxa kugu dhacayo 1000 sano ka weyn yahay. maalinkaad xabiibi ayaa lagu qadiray. mar allahi markay dhibaatada kugu dhacdo oo kugu habsata markaas buu asagana shallarays iyo ma aragtay inuu ku yaso iyo inuu ku ma aragtay nothing kaaso yani haata isma leh. horta bani aadanka ilaahay abuuray nin walbaba dushu ka dharbaaxay waxa leeyahay orod lagama roonay roor taasaa wada haysata. bal aniga dhibaatada igu dhacday markaad aniga igu dhoola cadeyso oo aniga igu yasto oo dhibaatadii aniga aan la gariirayay oo marka maskaxdayda baabiisay oo igu dhacday adiga aad igu qosasho oo ma aragtay waxaan waxbana ahayn iga soo qaada oo dhibaatadii igu dhacday inuu ilaahay ii keenay baad igu aqoonsan oodan igala danqanin. adiga bariye kugu dhacaysaa ilaa barma ihide bariye kugu amaanaysaa ka war ya bari ayay kugu amaanaysaa. alxamdulilah anigu dad badan oo igu dhoola cadeynayay waa jira. anigu horta qof maanta bala aadan malihi naag baa ka aqli badan laakiin waa isleeyahay dad baa ka aqoon badan laakiin qof baa ka aqli badan ama ka waaye aragsan wallaahi inaan islahayn. laakiin waxaa isleeyahay waa laga aqoon badan yahay ama xag diini iyo xag maadiba ha ahaato. dad iga aqoon ani aqoon malihi. ani mar horena waa sheegay dadka ma aragtay adduunyaan lahaan jiray iyo kanaan samayn jiray iyo waxaanan soo bartay oo beenta ku faana aniga maahi. aniga waxbana liima soo barin qof wax la bartay ma ahayn. fictimnimadaba gurigayna ayaan kala amaaday. fictimka aan sheegto oo fictimka gurigayna ayay iiga soo dhacday. tu bannaan iiga dhacday maxay ba kala tahay marka caadi ay noqotay. marka wax caadi oo normal ah ayay bii noqotay aniga ya. waayo gurigaadaba mar haddaad fictim ku ahayd dee bannaankan waxay kaaga dhaca ama ninkaada uu ku geysta waxa normal ay ku noqonaysaa oo caadi ah oo dhaqan iska caadi ah oo jiray ku noqonaysaa. soo saas ma marka hadda wax la sheegane wax faa'iido ay leedahay ba male. wax la sheego wax faa'iido ay leedahay male. alxamdulilah nuura stop don't do that. alxamdulilah aniga waxaan la yaabana taas halkaasaan uga baxay. nin walbaba ilaahay horta ninkii qosle iyo kii kaleba ninba maalin bay bahasha usoo martinaysaa. dhibaatada ninba maalin bay la darastahay. nin ma aragtay magaciisa lagu soo qoray ma jirta. alxamdulilah ama igu dhoola cadeeya ama waxaanan jirin iga soo qaada ama qof wax alla waxaad iga soo qaadaanba waxaan u joojinaya ma aha. wax i dhimaayana ma aha. anigu dad baa i dhaawacay. dhibaatada igu dhacday bala aadan gacantiisa ayay iga timid laakiin uma joojinay. waxaan u joojinaya ma aha. alxamdulilah waxaan rabaa halkan inaan kala hadlo ragga Soomaaliyeed bariyahan dambe waxaad moodaa gabdhaha Soomaaliyeed markay dhibaatadooda dad raadiyo oo aad u raadiyo oo xooda mar kasta on meel fura gabar la soo qaawiyay gabar oo ma aragtay si gabar oo xumaanteeda la raadinayo baan ka arkaa. war ilaahay amarkiis raggii ma rasaqi baaba ka galay ba jirkii gabdhihii walaalahood ahay ka galay. maxaa dhibaatadan socota maxay tahay? war gabar wiil aroosayso ama 10 ha ka weynaata ama 5 ha ka weynaata gabarta jamuug ayaa lagu leeyahay. odayaasha dhuusada wada reeban la
oo markay fariistaan farruqda ku wada haayo oo wada SSI-da wada qaata oo wada aan shaqaysan gabar yar oo 5 boodaba ka mid ah ayaad idinka wax ka sheegtaan ragow yah odayaasha dhuusada siidaayo steerinkooda uu jilcay oo inay baxaan gabar 15 jir ama 14 jirka soo aroosay kuwaas maxay tahay kuwaas ma ilaahay baa u baneeyo tan maxaa ma ka xaaraansan tahay hadday 45 jirta iyo hadday 50 jirtaba miyaysan nafleeyaheen soo asaga jananka ugu baahda miyaysan ugu baahneen miyay ayada qof balaa'adan oo damiir la aysa ahayn gabadha hadday ninka yar guursatay ninka weyntii guursataba soo ilaahay uma banayno xaraga sooma wada qabanayo maxaa loogu shamuumaa gabadhii ninka ka yar guursato gabadhii qalad uu ka dhaca maxaa loogu shamuumaa oo ceebteeda loo raadiyaa ragga maxaana asaga ceebtiisa loo raadinin raggan wada duqoobaha ah oo markay 3 naag iyo 4 naag inay ka soo dhamaystaan haddana gabar yar oo 5 jeer awow u noqon karaan guursanaya kuwaas maxay tahay maxaadan u arkin kuwaas gabadha markay ceebowdo ragga miyuusa ceeboobin maxaa ayada ceebta loo saaraa kaligeed war wixii qalad waa qalad laakiin wixii qalad ana ahayn gabdhahan aad daba dhigateen oo gabdhahan mid kastaba aad soo qaadayseen oo inaad karaamada ka qaadaan oo ceebaysaan gabdhaha qarqarka ka tuurina gabdhaha qarqarka ka tuurina rasaqa gabadhiina dabadeeda iyo seedan ka galin gabar Soomaaliyeed ayadaaba gurigooda victim ku ah runtayda sheegaya gurigay ka dhalatay ayay victim ku ahayd war waxaan wada aamusan oo shib oonan ka hadlaynin waxaad moodaa inay qalaf baxsan yihiin yah inay fiican yihiin oo dhibaato aysan ku soo dhicin kulli waa wada dhibana kulli waa dhibana kulli gabdhaha Soomaalida waa wada dhibana runtayda sheegaya tii hadasho iyo tii aan hadlin iyo tii sidaa ku waalata iyo tii ilaahay uu badbaadiyaba kulligood waa wada victim waana dhibaatadana Soomaali kale ma haysatay adduunyada oo idil baa wada victim soo adduunkaba waxa waaye waa meel oo ma aragtay waxa la isu keenayba waa dhibaatadaas adduunka maalinka dhibaato un baa dhibaatadaad ka nasanaysa camalkaada koriyal waxaad shaqaystaa koriyal inta kale dhibaatada saasay ku wala jiraysaa gabdhaha aad saa markay soo galaan ama gaajaha soo galaysa ama wax kalaba ha soo galayso gabdhaha aad ma aragtay daba galaysaan oo gabadhii aad daba galaysaan oo ma aragtay gaali nacab aad u jabinaysaan oo dhulka la galaysaan ruuxa maxay idin ka tahay bismillaahir rahmaanir rahiim gabadha sharafteed wiil bay dhalatay nin baa dhalay hooyaa dhashay qabiil bay ka dhalatay ehel iyo akhri bay leedahay ilma adeer bay leedahay war gabdhaha saas yeelina war ka hara haas ku sameynina gabdhaha saas ku sameeyna gabdhaha Soomaali waa wada dheeman gabdhaha waa dheemanka ha dhaawacina war iska daaya gabar dhaawac kuma wanaagsana faraha ka qaada gabdhaha dhaawacina war rasaqa si kale u raadsada dagaalkii hawadana hadduu naga soo galay haddaa hoosna dagaal hoosana nagu socdo hawadana dagaalkii hawadana uu nagu socdo markii hore hawada lama aqaanin dagaal caadi ah oo kala socday hadda hawadii baa ku darsantay wareede gabdhihiina ha dhaawacina ciday rabtaa haato qabiilkay rabta Soomaaliha ka ahata gabar waa gabar waa hooyada waa walaasha waa kula dhalatay waa u dhaxaysaa waa dhali doontaa gabar ceeb ma leh gabdhaha ceebaynina oo dabadooda suuqa ku raadsanina oo lacag ka doonina dabadeeda rasaqa si kale u raadsada rasaqaas xanuun baad ka qaadaysaan baan ku yiri waad ku dhamaanaysaan rasaqaas ha raadsanina oo noocaas ha u raadsanina gabdhaha ceebayna ceebtooda ha raadinina wartii ayada banaanka ceebteeda soo dhigata waa sax laakiin gabdhaha ceebtooda ha raadinina
gabdhaha ceebtooda ha raadinna. ceeb calayk gabar ceebteeda aad raadisay ha raadinna gabdhaha ceebtooda. waddankan asagaaba camal tusiska ah. wadamadan waxa waaye waxaan gaalaha soo saaratay ayakaana sida rabta ka yeelanayo. waxa la iskugu kindiibayba aqligiina iyo meesha heerkaad garaacaysin in lidinku arko beel rab. haddana Soomaali waa la arkay waxay tahay oo dilba waa la ogaad. nothing inaad tihiin waa la ogaad. war gabdhaha iska daaya, war gabdhaha caabayna, war gabdhaha marada ka tuurina, war gabdhaha dabadooda iyo jirkooda waxbana ha ka sheegin. dabada gabadha waa dahab, waa diamond, waa luul. kama maarantaan haddana wad caynaysaan oo ceebteedaad raadinaysaan. iska daaya gabdhaha. waana idin salaamaya Soomaali Maxamed insha Allah. saas iyo nabaday khayr baan idin rajaynaa insha Allah. meel kastoo joogtaan Allah idinku amaansado. anna ii soo dacooyo walaalahey aad tihiin. halii soo dacooyo ilaahay inuu caafimaad sareecan caafimaadkayga ilaahay inuu ii soo dhammaystiro. cadowga igu dhaganne oo ma aragtay meel walba igaga dhaganne ilaahay iga furfuro iga fujiyo. waayo waxaan ka haysta male. bani-aadanka ayakaa cadowgiisu ah, dadka ayakaa cadowgiisu ah. markaa shalayba anigoo dad aanan waxban u dhimin baa la ii dilay. haddana dhibaatadii inaysa iga dhammaanin waan ogahay. marka alxamdulilaahi ii soo dacooyo. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. ilaahay inuu caafimaadka ayaa wax kasta waxaa ka muhiimsan caafimaadka. caafimaadka ha laygu soo dacooyo. Soomaaliya caafimaadka igu soo dacooyo inuu ilaahay caafimaad isiiyo oo maskaxdayda ilaahay ii soo dejiyo oo aqligayga ilaahay ii soo celiyo. faatixada ii soo maro. waan idin salaamayaa insha Allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.